Salaam caawa waxaan arkaynaa halkan sida loogu bedelo xuruufta ama yaryar ama small letterska si capital letter loogu bedelo adigoo isticmaalaya Excelka ayaanu halkan caawa ku arkaynaa. Sidaas darteed waxaan leenahay marka koowaad equal to ayaan leenahay upper oo upper letter laga wado ayaan click leenahay kadib waxaan dooranaynaa xarfaha inaan bedelaan doonanaa saa wada doorananaa kadib enter ayaan leenahay ka koowaad ayuu noo shaqeynaya markaas kadib waxaan imanaynaa halkaas markii calaamaddu isku bedesho isku tallaabta ayaan saas hoos ugu soo jeedinaa kadib saas ayuu ugu wada bedelaya magacaanta ugu bedelaya sheegay ugu bedelaya capital letter inaad formulaha ka saartid doonaysid right click baad leedahay koowaad wada dooran right click baad leedahay copy baad leedahay isla halkan iyaad valueska ku paste garanaysaa kadib haddaad doonaysa inaad small letter ku celiso isla sidii oo kale ayaad yeelaysaa equal to ayaad leedahay lower ayaad leedahay double click ayaad leedahay kadib saan wada dooranaysaa enter ayaad leedahay ka koowaad iyuu nooga dhigayaa xuruuftii yaryar kadib saas hoos ugu soo jiidaysaa saas ayuu ugu bedelayaa xuruf yaryar waad mahadsantihiin